Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Nabaday daawadayaal idil ahaantiinba soo dhawaada. Waxa aynu u wada dheg taaganay oo aynu sugaynay caawa natiijada kasoo bixi doonta kama dambayska ah labada gole ee baarlamanka iyo deegaanka ee kalkaa ku tartamayay Jamhuuriyadda Somaliland. Taasoo caawa natiijadii kama dambaysta ahayd lagu dhawaaqay labadii habeenimo saacadda Geeska Afrika markii ay maraysay. Haddaba haddii aynu eegno sida ay ku soo baxday natiijada golaha wakiilada ee gobolka Maroodijeex, waxa ay ahayd xisbil xaakimka ama xisbiga kulmiye oo ku guuleystay 8 kursi iyo xisbiga UCID oo isaguna helay 5 kursi, halka xisbiga wadani ee isaguna mucaaradka uu helay 7 kursi. Sidaa daraadeed guud ahaan gobolada marka la isku daro kuraasta laga kala helayna waxay noqonayaan 31 kursi oo uu helay xisbil mucaaradka wadani iyo 30 kursi oo uu helay xisbil xaakimka kulmiye iyo 30 kursi iyo 21 kursi oo uu helay xisbiga mucaaradka ee isaguna UCID. Sidaas ayuu aqlabiyada ku helay golaha wakiilada xisbiga wadani, kaasoo uu hogaaminayo Barkhad Jaamac Batuun oo noqday xildhibaanka ugu codka badan, kaasoo helay Barkhad oo ku guuleystay 20,231. Haddaba haddaynu u nimaadno golaha deegaanka ee Maroodijeex, isagana caawa la sugayay natiijadiisa. Waxa uu ku guuleystay xisbiga mucaaradka ee wadani 7 kursi, halka xisbil xaakimkuna uu ku guuleystay kulmiye 6 kursi. Xisbiga UCIDna uu ku guuleystay 4 kursi. Kuraastaas guud ahaan gobolada oo dhan 3 xisbi ay ka kala heleen waxay noqonayaan 36 kursi oo uu helay xisbiga wadani, halka isaguna uu 36 kursi helay xisbiga xaakimka ee kulmiye. Xisbil mucaaradka UCIDna uu helay 23 kursi. Cabdikariin Axmed Mooge ayaa isaguna noqday xildhibaanka ugu codka badan leh ee kasoo baxay golaha deegaanka, isaga oo ka sharaxnaa xisbiga wadani. Waxa uu ku guuleystay 26,000 oo cod. Intaasi waxay noogu ekaa war wixii aan idinka haynay doorashooyinkii isku sidkanaa ee ka qabsoomay Jamhuuriyadda Somaliland 31 May 2021. Aad baad u mahadsantihiin noola socoteen. Channelkana subscribe, like, share intaba ha ka ilaawina. Waqtiga ku xiga intaynu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.